السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدلهانتين باخيارتا ودا نغلا سocotay kusoo dhawaada halkani waa dayax weerar media waana markale iyo qisooyinka aad nooga barateen qiso nooga sheekaynayo mid kamid ah naftood hurayaashii jawxo qisadan waxaa qoray Abwaan Cabdirasaaq Habi waxaana idin la socodsiin doontaa anigoo ah Maryama Xamdi Khaliil. Hadaba waxay ku bilaabmaysaa sida tan. Jabhada ayaan soo raacay muddo markii aan la socday aanan wax dagaal ah aanan gelin aan isleeyahay waa sidee gaaladii ayaanu amin fiid ah meel ka galnay wadada isku xidha Baabili ilaa Goday waxaanu ka galnay inta u dhaxaysa Simanahiya fiiq qiyaastii taariikhdu waxay ahayd 2001 bahanoo muddo 2 sano ku dhawaad oo aan jabhada la socday wax dagaal ah maanu gelin oo waaban yaabanahay waxaanu heen 6 nafti hore waxaana watay Allah u naxariistay nafti hore Ibraahim Jabiye 6danadii habeenkaas 4 way naga shahiideen nin waagi dambe naga xarooday iyo aniga oo ka nool annagoo 2 ah ayaa lana dhahay idinku xagga horumara oo gaadhiga inaga hubiya xilliguna waa fiid meel baan galay nafti hore kala daahaan uu iga weyn yahay meel uu baabuurka ka arkay wadadana ka durugsan buu galay anana geed yar oo tiin cas ah oo wadada dhexdeeda ku yaal ayaan foodo saaray dhawi waxa uu ka qabo geedka adoo baabuurku istaago hooskiisa ayay qarin sideedaba wiilku marka uu jabhada ku cusub yahay waa uu dhiiran yahay oo waa geesi gaadhigu inuu dad badan saaran yahay waan arkaa laakiin dadkani waxay yihiin ma fahansanay nafti hore kala gartay xabad ayuuna ku riday gaadhiga waa uu istaagay markay xabadii u horeysay ku dhacdayba gaadhiga kolka uu yara dhaafay oo xagga dambe hayaan kaga simanahay taqaanaanba gaaladu xagga dambe waa ay furan jirtay jambiga dambe baabuurka ma aynan xiri jirin si haday xabadi ugu dhacdo ciidanka ay durba uga daataan waxaan la kulmay gaadhigii oo wax yar dhaafay xabada wiilka uu ku riday iyo gaadhigii oo istaagay gaaladii oo hal mar wada istaagtay gaadhiga dhexdiisa nana waxaaban lahaa ilaahow ma laga yaabaa inaan marun gaalisashaan oo aad xabad ku rido ileen inta aadan weli dagaal gelin aamini maysid inaad nafti hore tahay gaaladii markay wada istaageen baan baabuurkii dabadu ay banaaneed ee ay ka degi lahaayeen kala istaagay markaas baan xabad si aan qiyaas lahayn ugu furay ugu yaraan gaaladii saarneyd ee markaa taagneed waxaan ku qiyaasi karaa 30 askari wiilkii kale kiyo halkiisii ku jira intuu ku soo riday ayuu iskaga baxay anana waxaan iska ahay geerimoog carar iyo xadaarayso dib u bax waxaas meebi ii daaran yihiin bal iska daa inaan dib u baxee afkii baan kala taaganahay meel kale ay u baxaan ma jiraan gowda ayaan xabad kaga saaray waba sidaa rabay wixii aan ku ridi karay markii aan ku riday wax xabad ah oo gaadhigayga dhicina aan waayay ayaan dib u baxay meesha waxay aad u leedahay geedka loo yaqaano bilcin oo waa goobkayna hadaba maana sii soconay bilcilka ahaa ayaan hoos istaagay waxaana qorshaystay balgaalada inaan shanqadhooda iyo hadalkooga dhageysto ma aqaano afka maxaariga xilliyo badan xitaa maanan aragaal oo aragtidoodu wayba igu yareed hadaba habeenkaas 2 kalmadood ayaan ka bartay afkaas oo aan ka maqlay gaaladii sida weyne iyo ayso 2 kalmadood habeenkaas ayaa igu horeysay macnahooga habeenkaas maanan garanhayn waan iskaga tagay xilli dambe ayaan meelan ku ballansaneen ugu tagay 5tii nafti hore oo isugaya way la kabtameen war waxba ma aadan ku ridin ayay igu dhaheen annana waxaan ku yiri warkeeda waad heli doontaane iska suga habeenkaas oo dhan halkii bay joogtay gaaladu habeenkii dambe ayaan dad fiiqay maaday u tagnay oo dadkii ayaanu wareysanay waxayna nagu dhaheen gaaladii xalay bay meel hebel jabhadii u gashay dhaawacooga ayaa magaalada ay keentay waxaana la xaqiijiyay waa 12 gaal xalay oo dhan goobtii waxaa ka dhacay wuxuun bay ku aasisay ayaa leeyahay markaas baan ogaanay wixii goobta ka dhacay taariikh ayay ahayd habeenkaas waa habeenkii ugu horeysay in xabad ku rido in ogaaday inaan gaalo layn karo xilligaas ayaan aaminay inaan nafti hore ahay ileen intii hore shaki baa igada jiray hawlgalladanagii caadiga ahaa ayaan iska sii watay hadaba taariikhdu markay ahayd 2003 waxaanu joognay nogob dhexdeeda gaar ahaan meesha la dhaho daaca dhuur waxaana taliyaha qaybta nogob ahaa nafti hore Axmed Nuur Garaase waxaa ku xigay dhaabe waxaana kaga sii xigay Abwaan Xasan Gaabane hadaba anaga oo degan daaca dhuur tiro ahaana waxaan gaadhaynay 15 nafti hore qiyaastii 10 nafti hore ayaa qori watay 5 kalena waran leeyihiin oo aynan wax qori ah aynan wadanin waagaas hubku aad buu noogu yaraa tiradanaguna way yareed laakiin tayo cajiib ah iimaan taama iyo kalsooni buuxda ayaanu lahayn ilaa uu wiilka
wiilka naftii hore ahi hadday konton gaal kusoo hagaagto uu yasayo ama uu yaraysanayo. maalinimo khamiis ah ayuu sheekh suldaan nooga sheekeeyey dagaal ay galeen deetana gaal dhaawaca uu ka daadiyey ilkaha. markaas baan ku yidhi sheekh suldaanow waxaa iga ballan ah dagaalka ugu horeeya een galo inaan ana gaal ilkaha ka daadiyo. markaas buu igu yidhi anigu waan ka daadshaye haddaad qoriga un ka qaadan ka qaado. haye baan ku yidhi haddaba aniga iyo laba naftii hore ayaa lanagu yidhi oo kasoo dhaamiya garbada afyar. garbada afyar waa garba biyood laga cabo. waa ay garanhayaan dadka reer daacadhuur iyo reer nogbeedku badankoodu. waa maalin jimco ah carafana la taagan yahay. waanu kasoo tegnay aniga iyo wiilashii laba qori baan wadanaa. mid baa waranle ah oo waxa uu noo soo qaaday caygado badan. garbada biyaha ahi waxay ku taallaa bannaan weyn. innaga oo soconno baanu aragnay nin xidhan dirays oo biyaha dultaagan. ninkii si degdeg ah unbuu u fadhiistay. ilaahay amarkii waxaanu moodnay naftii hore la oran jiray gaalo laaye oo badanaa xidhan jiray dirayska ciidanka oo ka mid ahaa qoladii aanu ka nimaanay. waanu iska soconnay. haddaba waxaanu aragnay nin kale oo meel mulux ku maray. markaa dambe ayaanu sheekanay eegna oo waanu isweydiinay dameero dixda oo soo fulay yaan meel naga yara durugsan bildhaantooda ka aragnay. wiil waran la ahaa ayaanu ku nidhi waanu ku sugiye orodoo hablaha dameeraha wataa soo warayso. sida aduu wiilka nooga dhaqaaqay ayaanu durba midig iyo bidix aragnay fiilooyin dhaadheer ah oo safaf ballaadhan ku jira. jiwigu waa isbedelay. dagaal buuna saasaanteeda yeeshay. ciidankii aanu ka nimaanay iyo dad xubno ah oo aad u badan oo meelo nooga kala yimid waa warmoog oo waa isdhex daadsanaayeen. ma aanan ku ridin oo orod baanu isu soo qaadnay. saanu u ordaynay baanu ciidankii kusoo dhex dhacnay. si degdeg ah ayaana loo diyaar garoobay. qiyaastii 6 annagoo ah halkii baa lanagu reebay oo gaaladii baanu hadhnay. 6danagaas lasoo reebay magacdooda waxaan ka xasuustaa suldaan xasan gaabane weli carab iyo dhaabe iyo aniga. bal maxaa xigi doona dhegaystayaal la soco qaybta labaad ee qisadan. halkaad nagala socotaana waa Dayax Weerar Media. qoraaga qisadani waa Cabdirasaaq Habi. waxaan idin akrinaysay anigoo ah Maryam Xamdi Khaliif. intaanu ku kulmi doono qaybta labaad waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.